nin caraabi ah oo ari la joogo ayaa ariga intuu dhurwaa u yimid buu neefka la carar uu ka daba ordayo markaasuu neefkii buu ka riday dhurwaagii intuu xagga kale istaaguu soo fiiriyey man lahaa yowma sabc maanta adigaa iga celinaye maalinka xoolahan dugaagga un raaci doono yaa ilaashanayo ninkii wuu yaabay waa cajaban di'bun yatakallam wax yaab la weeyo dhurwaa hadlayo sidii dadkii u hadlayo markaasuu yidhi waxaan kuu sheegayaa acjabu min daalik wax ka sii yaab badan baan kuu sheegayaa oo waa maxay nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh rasuulkii la soo diray ee rasusha ugu dambeeyey ayaa dadka u warramaya halkaas ugu qisoonaye orod aad buu yidhi ninkii markaasuu intuu soo tegey oo arigiisii ka soo tegey ayuu meeshii uu soo ku tilmaamo u yimid markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo fadhiyo oo asxaabtii u qisoonaya ayuu u yimid markaasuu qisadii u sheegay nabigu u sheeg buu yidhi asxaabta markaasuu asxaabtii u sheegay aad ayay u yaabeen saxaabtii oo la cajabeen rasuulkuu rumeeyey orod iska noqo buu yidhi arigaagii u tag wuxuu u tegey arigii oo meeshiisii iska daaqayo dhurwaagiina la daaqayo iska dhinac joogo oo waxbana uusan yeelayn ما شاء الله معجزات بان نبقى إلهي سي إلهي كو أيدي سبحانه وتعالى إخوتي الأعزاء رسول كان عليه الصلاة والسلام محبتي سالها نوي رزاقه مركان دقيسنا نبقى صفات كيسة مركان دقيسنا وحا إلهي كو فضلي أو فضائشي معجزات كإلهي كو أيدي qalbigeena waa inuu ku abuurmo maxabada nabigeena sallallahu alayhi wasallam nin ayaa jiray ree ansaareeda rasuulku u yimid salawaatullaahi wasalaamu alayhi soo hor fariista rasuul markaasuu u fiirinaya ninkii indhaha meel kale ma fiirinayo rasuulku sidaa u fiirinaya markaasuu rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam yaa fulaan maalak maxaa dhacay xogaa waxaad moodaa shucuur baa ka muuqata ninka meel kale ma eegayo saas way markaasuu rasuulka ilaahay markaan kaa maqanahay anoo kaa maqan aan ku xusuusto qalbigaad ku soo dhacdo naftaydu ma qaboobaysa ilaa aan kuu imaado on ku arko markaan kuu imaado on ku arko wejigaaga arko ayaan qaboobayaa waxaan xusuustay maanta mawtii wa mawtak aniga inaan dhimanayo adigana aad dhimanaysaan xusuustay maanta adigu haddaad dhimato ilaahay wuxuu ku geynayaa aclaa ciliyiin darajada ugu sarraysa jannada anigu haddaan dhinto haddiiba ilaahay jannada ii qadaro jannada la igeeyo adiga ku arki maayo laanna isku darajo ma nihin ku arki maayo marka waxaan doonayaa intaan adduunyada joogo inaan fiiradaada ka dhargaan doonaya meel kale ma fiirinayo adigan baan ku eegaya rasuulka ilaahay maa sha allah ninkaa wuxuu rasuulka ugu jawaabu garwaale shibuu yidhi anigu xataa nazala jibriil baa soo degay aayaddan fii suurati nisaa ayaa ku soo degtay oo rasuulka loo keenay calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waman yudic illaaha waarasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqa ninkii baa loo yeeray markaasuu nabigu ku dul aqriyay عليه الصلاة والسلام ومن يطع الله والرسول إلهي الرسول كيس قفك أضيع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم قفك وحو نقنيا كو إلهي النعميي أيو كم من نقنيا لجريا وقال إلهي النعميي واي من النبيين والصديقين نبياشي أنبيادي يا والصديقين صديقينتي كو إيمانك وذكروا شيء والشهداء كو يعني شهادة في سبيل الله جهاد ككل انتي والصالحين كو صالحين إلهي عبادتي سيدا عدي سوقات وحسن أولئك رفيقا وحلل الرفيقا كواسا ونكسن بإلهي marka qofkii nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam oo sunnadiisa raaco oo raaca nabiga maciisu noqonaya aakhiro nabiga maciisu noqonaya ma waayo nabiga calayhi salaatu